السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قام ياسمين محمد عبد حامد كسعودة ديرن solutions ديرن هذا البلودي إني كهول قشة حاجة إيو على ذها إنترنت وحن إذا كلها اللي نمانتها وهلك إذا كوهيا برنامج هذا قرب بدنا كوسابسن كورونا فيروس برنامج دي بقى نحن نسويريتشني إنه إذا كلها هذا الحاجة إيو aaladaha hadda dadku iskala hadlaan mar haddii musiibadan la yiraahdo coronavirus adduunyada ay ku faaftay aynuna ilaalinayno caafimaadka iyo taxadirka faraha badan oo loo baahan yahay oo looga qayb galayo si dadka aan maxaan ku dhahday cudurkaas khatarta ah loogu geynin dhiiran waa program ka hawlgala magaalada Garowe rabnaa inaan ku faafino dalka intiisa kale oo dhan oo runtii aad iyo aad u soo dhaweeyay arrimaha bulshada waliba xagga gabdhaha dhalinyarta yar haweenka hawlaha ku saabsan caafimaadka waxbarashada maxaan ku rahdayay iyo arrimaha bulshada oo aad iyo aad important ka u ah entrepreneurship businesska horumarka solutions baanu sameynaa waxaanu la nimaadnaa maxaan ku rahdayay waxyaalaha xalka ah oo looga baahan yahay dalka dhexdiisa waxa maanta marti iigu ah barnaamijka samsam Ali Faarax oo ah gabadh dhalin yar ku nool magaalada Garowe oo aad iyo aad uga hawlgasho arrimaha bulshada firfircoon kuwa aan ku tilmaamo weeye diiranayaasha samsam ay soo dhawow wadhawahay Dr. Yasmin aad baad u mahadsan tahay waxaa tahay xubin weyn oo bulshada door muhiim ah ka joogta waan ku faraxsanahay barnaamijkan maanta inaad igu casinto aan marti ku ahay wadhawahay mar labaad iyo mar saddexaadba ما شاء الله تبارك الله إن بدن بينه برنامج كنت معني إنه كهذا لما أنت وينقع إسهلين الحمد لله رب العالمين إلهي بأستقناتي إنه يسون مادنا مركا وحين كهذا لنا وحويا كورونا فيروس كان الدنيا ذو كفها في أيام ربنين وحيالا بدن كان يراهنا أيامها صوص سعودة أدوك ما أنت إن شاء الله أدوكه الرئيسي وحن ربتي ربنا وحكاوي دي مر هدي أتاي قبل دلنير أو برشدي كل حجرته أو برشدي أدوك أور حيسا وحن ربنا بلو إن وحنا وقت تراهديد عذر كان هذا اللي ليه هذا الكوسوفا فيا الدنيا دي كلنا ربتي قبصدي Soomaaliya haduu yimaadana runtii khatarteeda iska leedahay waxaan rabnaa inaad xnooga yar sheegtid arrimaha bulshada bal bulshadii wax ma iska bedeleen sidee bay u saameysay wararkan la keenayo leeyahay hal la taxadiro hal la is ilaaliyo mahadsantahay aad baan ku salaamayaa su'aal aad u qiimo badan aad u weyn waad ii weydiisay miisaaniyada iyo mug weyn leh haddii aan dul istaago su'aashan ah bulshadii wax ma iska bedeleen intii uu soo shacbay cudurka kan adduunka saameeyo halista oo aafadiis aan wada ognahay iyo heerka oo dunida marayo ka bulsho ahaan markaan u fiiriyo bulshadeena ama aad dhex gashid ama aad qiimaysid lama sameyn wixii intii loo baahnaa boqolkiiba 90 iyo in ka badan oo ka hortag ah ama dadaal ah maxaa yeelay isku socodkii iyo isku tagii iyo waxyaabihii looga hortagayo cudurka kan oo dhan sideedaba u socdaan suuqyadii baa furan dadkii baa is salaamaya meheradihii baa furan transportationkii baa isku furan oo waxyaar kasta gawaaridii BL-ka kaleeto dad badan saaran yihiin dadkii oo ayagoo sida sameynaya baysan haddana sameynan tilaabooyinkii loogu talagalay in looga hortago xanuunka oo ahayd in la isticmaalo waxyaabaha kan cudurka looga hortagayo xirka oo kaleeto gacmo xirka oo kaleeto bulshadii way dhayalsanaysaa waxay ku leeyihiin ifan hadday arkaan maanta adoo qaba ama qof qaba waxay ku dhahayaan ilaahay baa la iska tala saartaa maxaa naqaska isugu dhijinaysaa isku caburinaysaa distancing iyo kala lama sameynayo suuqyadii kale marka aragtid aad bay jaam u yihiin oo xawli u yihiin marka looma sameynin wax ka hortaga aan dhihi karna hadeertaan ka hortag baan sameynay ama dadaal baan sameynay wacyigelintii way jirtaa laakiin dadkeena Soomaalida badanaa hadalka meesha kama qaadan way iska dhayalsadaan
aad baan ku fahmay aad iyo aad baan ku fahmay hadalka hadda aad tiri waa hadal aad muhiim u ah khatartiisana leh inkastoo aynu ognahay in bando la soo rogay oo gelin fara badan la soo rogay oo dowladda iyo wasaaradda caafimaadku iyo weliba coronavirus committee la sameeyey intaba aynu ognahay inay taxadir fara badan ay dadka u sheegeen inay kala taxadiraan inay kala fogaadaan inay kala fogaashiyo sameeyaan taas waxaad leedahay suuqa kama muuqato in ay lagu dhaqaaqay sidii la rabay loogu dhaqaaqay may taas suuqa kama muuqata saameynteedu markii loo fiiriyo bulshadii iyo isku dhaqdhaqaaqii suuqyadii ganacsigii meheradihii taasi aan la samayn social distance loo baahnaa ama amaamirta kusoo baxday ama wacyigelinta lagu sameeyey haddana taasoo jirta baan la isticmaalin waxyaabihii looga hortagayo faasiidka yarayn lahaa ayadoo la heli karaba oo suuqadii oo kale lagu talayo galoofisyadii xirkii waxyaabihii oo dhan ba haddana la iska dhayrsanayaa oo dadku waxay ku leeyihiin ilaahay iska tala saara ilaahay tala saara waa sax laakiin ilaahay wuxuu ku yidhi dadaal is ilaali buu ku yidhaahday ma ahan ilaahay wuxuu yidhaahday saddex ma aqbala hadalkooda haddaad tirahdid maanta ilaahay cibaadaysamaayo janno igee waxay u dhigantaa dee cudurkii ka hortagmaya ama dadaali mahayo cudurka ilaahay waxa igu fidir waa sax ilaahay ku xirnow camal falo ducayso dadaal laakiin haddana la imow acmaasheedii iyo dadaalkeedii iyo ka hortageedii intaba la imow oo samee baa loo baahan yahay marka bulshadeena kama dhex muuqato maxay tahay laakiin samee waxaan rabaa su'aasha inaad haddana dib isu kay dul taagtid oo bal aad ii yar faahfaahisid haddii la yiri cudur baa soo faafay aafada adduunka oo dhan adduunyada oo dhan maxaan ku dhahday dacladeeda aafo weyn oo runtii khatarteeda leh baa timid xag jira oo khatarteeday leedahay is ilaaliya haddii la yiri caruurtiina ilaaliya bulshada ilaaliya idinku is ilaaliya ilaa qofku waa inuu isaguna is ilaaliya bulshadana uu ilaaliya waqti labadaba waa loo baahan yahay waxa loo dhayarsan tii ilaahaydeena waa halkeedii ilaahay mar walba waanu tala saaranayo adigoon ilaahay tala saarin waxba kuma dhaqaaqi kartid waxaan nahay dad muslina bulsho muslina baynu nahay laakiin ilaahay baana badbaadinaya mana maqlayno wacyigelintiina la siiyey micnaheeda ayaan fahmi la'ahay marka bal iyara fahansii aniga iyo internet geysanaysaba waxay ila eg tahay kaliba dadka Soomaalida ah waa dad badanaa aan horta awaamirta u hoggaansamaynin maanta kaleetana waa maalinta loo baahan yahay in dadka gudiyada u khaaska ka hortaga coronavirus loo magacaabay dhaqaatiirta kalkaaliyaasha la dhageysto awaamirtooda horta ilaahay wuxuu ayad quraan ay tahay wadiicu Allah wa adiicu rasuul ulul amri kumaanta waxa weeyaan waa dhaqaatiirta iyo dadkan ka hortaga wacyigelinta wada oo kaleeto dadka kalkaaliyaasha doctorada oo kaleeto marka dadka Soomaalida waa waxaan caado u leenahay ama dhaqan u leenahay in aan waxyaabo aan iska dhayarsano oo waxaan oran karaa wax iska traditional ahaan aan u leenahay dhaqan ahaan Soomaalida oo kaleeto in wax iska fududsano marka bulshada uma arkaan in ay tahay wax saameyn kara ama ku dhici kara bal misalan waxa la caruurihii kala hal ilaaliyo oo guriyihii hal lagu hayo iskuuladii baa laga fasaxay haddana ma arkaysid carruurtu way soconayaan banaanooda ku ciyaarayaan ciyaar wadareerada ciyaarayaan oo marka waa arrin aad khatarteeda u leh halisteeda u leh marka dadkayga waxaan ku buugaabinayaa kula talinayaa bulshadayda weynteeda inta ay maqli doonta meel kasta ay joogaan in amaawiirta qaataan naftiisa qofku markuu badbaadiyo waxa badbaadisay kumanaan nafood oo kale nafta eelkaaga badbaadisay nafta bulshadaada badbaadisay marka inaad naftaada u helisid nafta bulshadaadana u helisid oo wax kaliya aan ku badbaadi karno ama ku baxsan karno maanta waan ognahay awoodeena dhaqaale tabarteena caafimaad ahaan adduunyadii horumartay oo caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo wax walba ahaan u horumartay baa cudurkii aan ognahay sida u saameeyey bal misalan talyaaniga oo kaleeto markii la warsanayay waxay markii hore tan cudurka dhayarsanay oo aanan ama ka hortag samayn oo fududsan oo waxaan isniri wadan horumar oo isku filan oo dhaqaalihiisa iyo dhaqaatiirtiisa iyo ay anfici karaan baan nahay cudurka saas u dhayarsaday
annagii oo maanta aan ognahay dhaqaalaheena dawadeena dhakhaatiirteena anything aan isticmaalayno adeego service aan isticmaalayno heerka ay noo joogaan inaan maanta haddana talooyinkii aan qaadan weyno ama taxadari weyno wallaahi waa saameynteeda inay ku yeelanaysaa iyo khatarteeda inay ku leedahay صح صح si fiican baad isu dul taagtay ma sha Allah tabaaraka Allah runtii waxaynu ognahay in cudurku uu adduunyadana ku faafay faraxuna ku hayo dad badan ay dhinteen dad badan ay hadda wali u jiifaan dadkaana kama baxsanin oo inagoo aan xitaa meel fog tagin baa waxaynu ognahay dalalka Yurub inta u badan Mareykanka wali lama soo sheegin Soomaali badan oo ku dhimatay laakiin Yurub aad bay Soomaalida ugu dhinteen waliba waxa la sheegayaa in maaragtay number waaweyn oo percentages waaweyn ay ku dhimanayaan taasoo aynu ka eegi karno hada inta aad ka sheekeynaysid oo ah ama inaan awaamirtii la qaadanayn ama ilaan maaragtay la dhigaysanayn wacyigelintii maxaan ku idhahdaa ee kasoo baxaysay dowladda marka taas waa Yurub say tahayna hadda waxaynu ognahay Soomaaliya inuu kusoo faafayo inay dad badan u dhinteen inay dad badan bukaan u yihiin inta maaragtay maxaa la dhahayay de kulliba kusoo socday inta aan is ogeyn oo laga yaabo inuu hayana ay badan yihiin cudurkaas aynu ognahay haddii bulshooyinka meel isugu timaado oo qof qaado in si yar loo kala qaadi karo oo hawada ku sii jiri karo markaa waxaad is leedahay marka la leeyahay kala fogaanshiyo hala sameeyo hala taxadiro guryaha hadda rabaa inaan kaala hadlo wax barnaamijyo u dejisan xaafadaha guryaha hooyooyinka aqalada waayo halkaas ayay ka imaanaysaa hooyadu haday amar bixiso caruurta ku tiraado waa is ilaasha oo dadka ka fogaada oo cidna haw dhawaanin oo idinka is ilaalintu hayda ka timaado iyadoo ay marka hore bilowdo faridaqi iyo afdaboolkii iyo kala fogaansho wixii la sheegayay ilmuhuna way ku dhaqaaqayaan guri walba waxa loo baahan yahay inay barnaamij uu la yimaado waxaan markayn halka soo fadhiisanaynay jeclaysteen aad ku tiraado ha guryo badan baa barnaamijyada dhex galay oo hooyooyinkii aad bay caruurtu ilaalinayaano iyaga way is ilaalinayaan xaafadii bay ilaalin waayo adiga kaliya islaal lagu leeyahay waxa lagu leeyahay bulshada ilaali maxaad nooga sheegi kartaa guryaha iyo xaafadaha iyo dadku dhaqankii sidee bay wax uga hadlayaan sidee bay maxaan ku idhahday kulliba hadda aad baa looga hadla coronavirus waxyaalo badan ugu saameeyey waynu ka wada hadli doonaa laakiin guryihii dhaqankii ma la geeyey waa su-aal aad u muhiima markaan dhahno guryaheeni markaan dhahno iyo hooyooyinkii siday uga hortagayaan ama caruurtii ugu wacyigelinayaan ama dadkii xaafadda kaleeto ugu wacyigelinayaan horta guryihii way badan yihiin bulshada way qaybo badan tahay way kala dabaqado badan tahay way jirtaa guryo ama dad u diyaarsan oo fahansan oo wacyigelintii la socda oo talooyinkii qaadanaya sidii la rabay bayaan loo hirgelin laakiin qof un ka mida hirgelinaya laakiin haddana saas oo ay tahay waxaa jirta bulsho badan ama awaamirtii gaaraynin ama ku taxadarayn oo helaynba servicekii ay uga taxadari lahaayeen bilmasalan waxaa jirta dad badan oo aan helaynba biyihii iyo saabuuntii iyo alcoholkii iyo servicekii ay u isticmaali lahaayeen in ay uga hortagaaniin u isticmaalaan taasoo jirta oo hatan halkaas idhib oo soo noqon doonaayeen hooyooyinka ma samaynin intii loo baahnaa oo taladii loo baahnayd oo ah dhammaystiran oo wacyigelin ah li'anna maxaa yeelay caruurtii iyo reerkii oo kalete waxaa la rabaa in loo diyaariyo meel gaara loogu sameeyo falaxalkii iyo alaabta saabuuntii iyo biyihii iyo loogu diyaariyo oo meeshaas ay u astaysan tahay in lagu isku nadiifiyo lagu falaxasho faraha lagu dhaqo 30 daqiiqaba hal mar oo kaleeto lagu dhaqo marka ma jirto sidii horeeto oo kaleeto baa guryaha looga dhaqmaya faraha iska dhaqa baa la dhahayaa intii horeeto kale wax ka badan oo la isticmaalayo ama meelo gaara oo loo diyaariyey oo loo guriga looga isticmaalo meel u gaara oo meeshaas ay u gooni tahay in lagu fara dhaqdo ay alaabta fara dhaqan ay ku diyaarsan tahay had iyo jeerna timekii loogu talagalay in lagu fara dhaqdo ama laisku soo nadiifiyo laiskugu soo nadiifinayo ma jirto aad bay waxay u tahay waa wax laga warwaro waa wax aad looga warwaro wax aad looga warwaro lagaba yaabaa dee hooyadii in ay gurigii saaka ka baxday oo qootulyoomkii raadisay asan gurigiiba ka warqamaynin bulshadeennana sida aan ognaho u badannahay dee waa hooyo saaka baxday oo beriskii raadisay marka ayaa gurigii ku amraya oo ka taxadaraya oo u diyaarinaya ilmihii marka ma jirto
heerkii loo baahnayna ma ahan tan kaleto waxaa jirta dee waxaa kaleto jirta bulsho badan ama qoysas badan oo aan biyihii helayn ama hooyo kasoo qaadaysa biyihii masaafo kasoo qaadaysa tigaankii biyaha kasoo dhaaminaysa saabuuntii iyo alcoholkii iyo waxyaabihii kaleto la isticmaalaya aan haysan sideebay biyahay kasoo qaadaysa dhowr kilomitir inay 30 daqiiqaba ku kala xalato oo isku clean garayso ama nadaafad kaleto u adeegsato way ku adkaanaysaa marka aad bay taas baan rabaa samsam inaan isku taago waxaa tiri hadda waxaa jira dad badan oo aan haysanin saabuun alcoholka iyada dhinac inoo dhig alcoholka maba aha wax dadkoo dhan ay kari karayaan laakiin saabuunta iyo biyaha waxaa la isleeyahay sida waxaa loo yiri faraha dhaqa oo awaamirta loo bixiyay waxaa la isleeyahay dadkii cala alaqal way heli karaan saabuun ugu yaraan saabuun iyo biyo way heli karaan hadda waxaad ii sheegaysaa in saabuun iyo biyo dadka inta badan aanay heli karin oo ay ku adag tahay marka iskaba dhaaf inay masaafo iyo meel ay u maaragtay u astaameeyaan in lagu faraxasho halkaa lasoo wada maro dee haddaanay haysanin faradhaqii iyo saabuuntii taas qudhadeedu markaa waxaynu dhex gelaynaa dhaqaalaha reerka oo aanba kari karin awoodi karin inay saabuun iyo biyo iibsadaan saas miya waa sidaas reerkii asagay oo maanta ba iska ahaa ay dhibisyadoo kale ta arrintan u badan waana meel ay ka jirto jam badan oo dad badan oo kale ay ku nool yihiin marka markii bulshadina waa bulsho isku dhex milmasta oo isdhex soconaysa marka arrintaasoo kalete waxay aad uga jirtaa biyo la'aanta iyo service la'aanta saabuunta oo kalete ay dhibisyadoo kalete bay aad uga jirtaa dee dhibisyadiina dadina ka maqan maahan hadduu cudurkii ku faafo waa dad bulshadii ka dhex shaqaysanaya bulshadii ku dhex jirto subaxiin soo wada kala haya halkaasaa la wada joogaa marka arrintaasi waa arrin dhanka dhaqaale ahaan saameynaysa waana arrin u baahan in loo toog hayo oo wacyigelin loo soo sameeyo oo servicekaas oo kaleeto loogu deeqo ama biyo iyo saabuun oo kaleeto baan aad u boorinaya aad iyo aad marka insha allah waxaanu ka rajaynaynaa guddiga iyo intii maaragtay ku hawlan maaragtay inay wacyigelinta iyo geersiiyaan dadka inayna dhegaysanayaan oo ogaadaan dadku inaanay saabuun haysan biyana haysan oo serviceka u baahan yahay in loo sameeyo maasha allah tabaaraka allah halka insha allah waa laga faa'iideysan doonaa haddii aan usoo noqdo tan dhaqaalaha ayaan rabaa inaan xoogaa isiradu taago waxaynu nahay dad Soomaaliyeed dad badan oo maaragtay danyar ah inagu jira dadku waxay u badan yihiin danyarta waaba loo badan yahayba haddii danyar loo badan yahay marka la leeyahay waxa la yiraahdo social distancing iyo self isolation waxa la yiraahdo ayaa la inoo sheego oo in u turjumayno kala fogaansho in la sameeyo in aan la isku dhex milmin in la kala yara fogaado dad baa jira runtii qutuliyoonkooda iyo maalintii intay cuni lahaayeen maalin walba soo shaqaysto meel aan waxba u olino kala fogaanshana aan suuqi ka samayn karaynin iyagana aanba sii kala fogaan karaynin oo laga yaabo gurigeeda inay dad badan ku nool yihiin marka taas ayaan rabaa inaad su kaydin taagtid oo bal nooga yara sheekaysid adkaanta ay ku adag tahay dadka inay kala fogaanshaha sameeyaan iyo dadkan maalin walba soo dhaadhacaya suuqa imaanaya ama suuqa ha ka yimaadaan barakacayaasha ama ha ka yimaadaan magaalada daafaheeda kale taa la leeyahay la kala fogaado maxay saameyn oo ku yeelanaysaa in aan dee runtii sidii la rabay in loo fuliyo inaan loo fulinin waxay saameyn oo ku yeelanaysaa inuu cudurkii sii fido bal misalan qofkii markuu saaka xaafadii kasoo tago oo maanta dhan magaaladii soo dhex soconaya dadku kusoo dhex soconaya gurigii markaad ku noqotid waxaad qabtay cidina ma garan karto allahu aclam marka bulshadii qoyskii aad ku noqoto dhan saasaad ku saameynaysaa oo cudurkiiba kusii fidaya haddaa adigoo saaka gurigaaga kasoo tegay oo qutulyomkii doonayay aad magaalada imaato markii aad gurigii ku noqoto adoo cudurkiisida dee gurigii oo dhan buu saameynayaa waxay noqonaysaa in lambar badan oo saameeyo cudurkii oo halistiisii sii fido bay noqonaysaa dadka marka qofku soo tagayo ama soo dhaadhacayo oo qutulyomkii soo raadinayo ama soo xamaal doonanayo soo shaqo tagayo ma sameynayo taxadar ma arkaysi dadkii oo suuqyada joogo oo shaqaysanaya ama qutulyomkoodii dhaacsanaya ama afxirka isticmaalaya gacmo gashiga isticmaalaya dadkiiba aan salaamayn salaantii laba jin weli waxa lagu leeyahay deemaba iska celin karno waba dhaqan aan la qabsanay ba joojin karayno adigii waxaa la yidhi sidee xeero loo xaqtaa ilkana ku nabad galaan waa muhim in aan
gurigii laga soo baxo waayo dee guriga haddii lagu jiro gaajaa loo dhimanaya banaankiina haddii loo baxana cudurkii baa la keenaya waa laba daran mid horo marka taxadarkii loo baahnaa markii banaanka loo soo baxaya lama samayn qofkii wuu iska soo baxaya maanta oo dhan wuxuu la soo kulmay bulsho kala duwan mise dhul kala duwan waxyaabo kala duwan waxa soo qaaday allahu aclam gurigii marka uu ku noqday ma samayn faradhaqi awal isagoo gurigii wuxuu kasoo tegay aan protection ka hortag soo samayn oo taxadir soo samayn haddana gurigii markuu ku noqdo faradhaqii qubayskii nadaafadii waxyaa isma kilin garaynayo gurigii buu iska dhex galaya oo sidii caadiga ahayd awal bulshada wada dhaqmi jirto iskaga dhaqmaya marka saamayntada iyaduna leedahay ilaahayga wayna waxadka halisteedii leedahay ilaahay baan waxaanu ka baryaynaa in bulshada danta yaroo taagta daran oo masaakiinta oo dee aan runtiina si fiican la moodaynayn waxba u fahmaynin inuu ilaahay runtii ka faydo oo ka fogeeyo waayo hadalladanaad leedahay khatarteeday leeyihiin dhaqankan hadda dadka ka dhex socda bulshada waayo dee waxa laynoo sheegayba waa in la fara dhaqdo in af la daboolo in la kala fogaado in alle intii la kari karana in la sameeyo waa la ogyahay dadku inay aad u maaragtay iska yihiin dad baahidoodu iska badan tahay laakiin in calaalaqal lagu dadaalo oo bal wax la maqlo oo wax la iswaadaarsado oo waxaan jeclaan lahaa guddiyadu maaragtay in xaafadihii ay guddiye yeeshaan eega bal guri walba dhaqankiisu sida uu yahay taasina waa mid malaha degmada iyo taalla iyo gobolka u yaalaba ila tahay laakiin waxay ficnaan lahayd in wacyigelinta lasii daadajiyo oo loo geeyo dadka ay u baahan oo weliba faradhaqaas xaafadaha looga dhigo maxaa la dhahaye meelo lagu faradhaqdo laga sameeyo waxaad iiga sheekaysaa hal mid baan halkaa kusoo dirsanaya asmiinay wacyigelinta bulshadana maanta loo diro ama messageka loo gudbiyo waxa la marsiiya social media ama idaacadaha iyo telefishinada sax marka dad badan oo waxaa jira aan kuba xirnayn ama ma isticmaalin ama telefishin ama radio ama aalada social mediaha oo u baahan in loo tago oo wacyigelin loo sameeyo oo si toosa wax loo tuso badanaa waxaa la dhahaa waa la falaxalanaya qaabkaasaa loo falaxashaa dadkii maba yaqaanaan qaabka loo falaxalanayo qaabka loo samaynayo falaxalkii ama falaxalkan la istusayo oo la dhahayo qaabkaa loo falaxasho maba ahan mid uu qofka samayn kara ama haysto oo kaleeto marka sidee bay kula tahay baa loo gaari karaa guul looga gaari karaa in alla intii la kari karo karankeena uu yahay sidee baa dadka wacyigelintu haddii aad tiri social media uu fadhiyaa social media dadku ma tagaan tviyada laga sheega laga yaabo inaanay tv haysanin runtii limitations fara badan ay jiraan iyo maxaan ku dhaca caqabado fara badan hor taagan yihiin dadkii ma guryaha loogu tagaa ma guddiyaa loo sameeyaa sidee bay kula tahay adiga mar haddiiba la ilaalinayo in la kala fogaado laakiin dad runtii way imaan karaan maxaa la dhahayey iyagoo afkoodii aaburayo furahooda soo dhaqday tusi karo oo shaqeeyo oo dad healthcare workers oo ka shaqeeya caafimaadka ma guryaha in loogu tago dadka la tusaba waa dalkii waa dal weyn magaaladii waa magaalo weyn inagu magaaladan kaliya ka hadlamayna xamar baa jirto hargeysa jirto oo boorama jirto oo burca jirto oo magaalooyinku waa waaweyn yihiin dadkii sidee loo gaarsiin way Soomaalidu hadday halkan saa ka tahay meelaha kale saasi ka yihiin isku mid baynu nahay dhaqankeena waa isku mid iyadoo waliba dal og yahay khatar inuu jiro marka hadda waxaad leedahay aaladaha laga sii daayo ma arkayaane si kale u baahan tahay waa sax dad badan waxaa jira aaladii aan haysan ama isticmaalin oo ku xirnayn baa jirta markaas waxaa loo baahan yahay dad u tababaran oo guddiya magaalada waa kala xaafad kasta guddi bay leedahay iyo horjoogayaal bay leedahay marka waxay u baahan tahay in loo sameeyo dad u tababaran oo messagekii qaado oo si ayagoo dadkii dee isticmaalayeen qalabkii loogu talagalay waxyaabihii loogu talagalay dadkii taxadaraya oo dee masaafada isku jirsanaya dad waxaa loo baahan yahay xaafadihii iyo dadkii u tago oo booqda oo messagekii u gudbiyo oo qaabkii loo taxadarayo ama loo keergaraynayo looga hortagayo dadkii tuso oo fariintii iyo messagekii gaarsiiya baa loo baahan yahay uma arko in ay kafargaraynayso media wacyigelin la marsiiyo inay dadkii kafargaraynayso ama bulshadii ay wada gaarayso oo anfacayso aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa mid aad muhiim u ah waxaan filayaa insha Allah inay dhageystaan dad
ka shaqeeya hawlaha oo hawlgeli doona oo fariimaha ay dirayaan wax ka bedeli doona oo u bedeli doona si ay wacyigelintu u gaadho dadka waxaan rabaa inaan dib ugu soo noqdo samsam marinka lagu dhahaa samsam marinka maasha allah waxaad ay sheegtay in dadku qutulyoonkooda usoo ordaan oo qutulyoonkooda soo raadsadaan laakiin isbedel ma kula tahay inuu ku dhacay xaggii dhaqaalaha haddii aan ka soo qaadno dadkii ka shaqaysan jiray suuqa haddii adeegyadii la yareeyey haddii maxaan ku idhaahdayey alaabtii imaanaysa la yareeyey haddii servicekii la yareeyey saameyn cankey bay ku yeelanaysaa reerkii masaakiinta ahaa oo danyarta ahaa oo soo ordi jiray oo $2-3-4 magaalada kasii shaqaysan jiray oo hadhow kula noqon jiray guriga oo carruurta halkaa wax ku siin jiray oo carruurtooda maalintii 2 jeer intaa uga karin jiray ama 3 jeerba isbedel baa ku dhacaya weliba waxaa ku imaanaya hakad iyo waxaa laga yaabaa challenges caqabado isdultaaga oo taabal wax yar nooga dhex وصح ومشاكل كلا ماشي كتيرة السعودية iyo badeecadii la soo sifrinayay iyo servicekii goods and servicekii oo dhan way yaraadeen marka taasi waxay keentay hadda already inay kor u kacaan waxay hadda kor u kacay maciishadii oo kale way sii qaaliyooday oo hadda marka la soo dukaameysanayo dee shay kasta qiimihii bareeskiisii hore ma joogo kor buu u kacay wax uun baa ku saaciday haba yaraadeen haba kala badnaadeen marka taasina waxay ku adkaanaysaa ayadoo isku socodkii ay adkaatay oo xoogaa soo yaraatay oo gaab uu galay haddana maciishadii oo kale ay xoogaa kor u kacday qutulyoomkii sidii loo yaraay awalba la helayay inuu adkaado oo halkii hoos uga sii dhaco haddeertaan way jirtaa way badnaatay haddii ay sidan sii socotana kasii hoos bay usii dhacaysaa dowladda oo kaleta waxay tidhaahdaa canshuur dhimis baa la samaynayaa yaan maciishada kor loo qaadin oo waxba lagu darinin haddana waa laga dareemayaa in wax lagu daro oo maciishadii kor u kacday oo isbedel uu ku yimaaday bulshadina way saameynaysaa halkaa waxaan ka fahmi karnaa haddii ay maciishadii kor u kacdo oo hooyadii ay kari weydo in ay ilmaheedii cuntadii daawal maaragtay siin kari jirta ay siin kari weydo in halkaa ay ka imanayso runtii waxyaalo badan oo saameynaya maxaa la dhahayay reerka maxaan ku dhahday noloshoodii taasoo iyadoo cudurna laga baqayo haddii gaajana ugu darsanto runtii waxay noqonaysaa xaalad aad u adag maxaa la dhahaa marka halkaa waxaad leedahay maciishadii baa kor u kacday shaqooyinkoodii baa hoos tegay oo dee shaqooyinba ma jiraan inta badan wixii dadku ay ka shaqaysan jireen uu isdhimay taas khatarteed ayay leedahay su-aasha kale aan rabay inaan ku weydiiyo samsamey waxa weeyaan يعني maxaad kula talin lahayd talooyin haddii aynu dhaahno waynu usoo jeedinaynaa maxaan ku dhahdayay dadka ku shaqada leh dowladda iyo wasaaradda iyo guddiga iyo kullu maxaad oran lahayd hal la bedelo hadda sida waxaad moodaa in maxaan ku dhahdayay halkan runtii dardar la geliyo markiiba in fariimo la diro in guddi la sameeyo in waxyaalo badan la qabto haddana hadda waxaad sheegaysaa in waxyaalo badan weli u baahan yahay in waxqabad badan lagu sii kordhiyo xagga serviceka iyo xagga dadka bulshada maxaad kula talin lahayd talooyinkaaga waxyaabahaas oo dhan waa sax wa jiraan waxaana loo baahan yahay in guddigii iyo dowladdii iyo dhammaan dadkii oo dhan way dadaalayaan khayr allaha siiyo haddana in dadaalkii lasii jeerjibaaro oo wacyigelintii lasii wado meelaha ka dhimanna lagu daro oo meelaha u baahan in wacyigelintii loo leexiyo oo loo leexisho oo aad looga taxadaro oo aad looga warqabo bulshada nugulka aad ba waxay ugu baahan tahay in hoos loo fiiriyo dhankan kaleto maciishadii iyo saameynteeda in hoos loo fiiriyo oo guddiyo loo saaro dabagal ku sameeyo oo ka warqaba waayo haddii awalba iyadoo noloshii reerka iska adkayd wixii lagu soo helaya ama sidii loo soo helayay haddana haddii ay kor usii kacdo saameynteeda sii yeelanaysaa marka taasna saasaan leeyahay dadkii waxaa laleeyahay gurigii ha joogan yaysa shaqaysan adigoo awalba noloshaadii wax yar ku dibaraayay haddana maciishadii sii kacdo kor sii aado oo sii qaliyoodo sixirkii maxaad guriga ku joogaysaa maxaad kusii fadhinaysaa intaad ordi jirtay
in ka badan baad dadaalkii muujinaysaa oo wax raadinaysaa oo suuquu sii galaysaa oo saamaynta la sii leedahay صح ان mahadsanid samsamay midda kale aan rabo inaan wax ka weydiiyo waxa weeyaan waxaan maqlayaa caruurka ku ag joogta caruurihii baa guryaha lagu hayaa caruurihii baa la yiraahdaa bixina caruurihii baa la yiraahdaa suuqi aadina caruurta suuqa ma aadana micnihii dibadda ku soo ciyaarina khatarteeda leedahay marka caruurta guriga lagu hayo way caruurtu waxay u baahan yihiin movements inay yaraha dhaqdhaqaaq sameeyaan ciyaaraan sidee bay kula tahay caruurta yar yarka ah oo guryaha lagu hayo Soomaali bay noo guryaha dad lagu hayn kara min yihiin dad fagax yiraahdo oo dunyada u faftago caruuruhuna suuqyadaas ku soo ciyaaraan taas lagu soo wada koray haddana ilmihii waxaad moodaa hooyooyin badan inay qaar badan guryaha ku hayaan caruurtu maxay saameyn ku yeelanaysaa maxay u baahan yihiin caruurtu inaanay dareemin ama dhaqdhaqaaq maxay sameyn karaan ilaa way u baahan yihiin dhaqdhaqaaq sidee bay hooyadu u ilaalin kartaa iyadoo ilaalinaysa iyaga siinaysa in yaroo maaragtay farxad gelinaysa oo ciyaar ah maxay kula tahay bay caruurtu sameyn karaan marka waa sax caruurtii markii guryaha lagu hayo ama guriga iska joogaan waxay u baahan yihiin dhaqdhaqaaq waxay u baahan yihiin nashaadaad waxay u baahan yihiin waayo qofkii haddii qolka uu isuga xirnaado dee mental ahaan buu isla hadlayaa oo ayada laftirkeedaba caafimaadkii saameynaysa marka waxay u baahan yihiin in ilmihii oo kaleto loo sheekeeyo oo ayadoo dee la kala fogaanayo in ilmihii oo kaleto loo sheekeeyo qalab yaryar oo waxyaabo yaryar oo ay ku ciyaaraan oo kaleto isku mashquuliyaan oo kaleto la siiyo la madadaalooyin badan ba u baahan yihiin in loo sameeyo guriga dhexdiisa haa waana la sameyn karaa haddii hooyadu ay isxilqaanto garanaysana ay ku baraarugsantahay waxyaabo badan oo la sameyn karo oo simple ah arrimihii iskuulka maxaa dhacay ilmihii haddii iskuuladii laga xiray iskuul xaggee bay aadayaan waxaana ka sheekeynaya kuwa aad u yaryar ilaa kuwa aad u waaweyn iskuuladii internetka weli ma loo soo bedelay may looma soo bedelinin waxaan la socdaa ama arkaya adigu laba galaas oo kamid sida 8ka iyo form 4ka kaleeto inay casharo ka qaadanayaan adigu telefishinka dawladda oo kaleeto si online ku qaadanayaan laakiin iskooladii oo kaleeto hadda imtixaamadii waa la xirayaa oo assignmentiyo ama casharada guriga uga soo shaqeynayaan markay celiyaaniin sidaas ugu xiran tahay oo iskoolkii ugu soo dhamaaday sanad dugsiyeedka intii loogu talagalay marka hadda caruurtii haddii iskuulkii laga fasaxay ama ha yirahdaan ama ha weynaadeen kale sidii loo baahnaa gurigii uguma sugna oo banaanadii bay iskugu tagaan oo ku kulmaan ama ayagoo waxyaabo yaryar oo playstations iyo waxyaabaha intay meel iskugu yimaadaan ku dheelaya ama ayagoo meelahaas banaanada iyo barxadaha ku ciyaaraya baad arkaysaa oo aan weli guryihii aan lagu celinin oo lagu haynin oo iskuulkii baa laga fasaxay waxbarashadii taasaa loo fasaxay taas waa mas'uuliyadda dawladda laakiin mas'uuliyadda guryaha weli way isdhimaysaa oo caruurtii weli guriga kuma jirtay banaanka u bixeen chance kale waxay heleen ay ayagu banaanada iskugu tagaanin oo uga faa'iidaystaan waqtigii si kaleeto taas ka hadlay sidoo dhalinyaradu ay isugu imaanayaan meelaha khatar kale ayay keenaysaa waayo markii hore ama iskuulka lagu hayay guriga lagu hayay laakiin waxaad leedahay meel dhexdhexaad bay helaan oo dibadii laga taxadiriyay ayay joogaan oo taasna khatarteeday leedahay oo dhalinyaradu markay isu timaado waxyaalo badan oo ay sameeyaan oo aan wanaagsanayn baa jirto markay isu yimaadaan marka taa qudhadeedu waxaad leedahay waa wax u baahan in wacyigelin laga sameeyo oo la ogaado waa wax u baahan in wacyigelin laga sameeyo oo guryaha iyo hooyooyinka iyo dadka guryaha ku xiran oo dhan oo bulshada oo dhan oo loo sameeyo u baahan ما شاء الله تبارك الله سمسم هدي aynu dib ugu soo noqono cudurkan iyo saameyntiisa bulshada ahaan bulshooyinka adduunyada oo dhan iyo teena hadii aynu si gaar ahaan uga sii hadalno guriyihii baa laynagu ururiyey barnaamijyadeenu ka qayb geli jirnay ma jiraan isu imaatinkii baa yaraaday maaragtay shirkii iyo isu imaatinkii iyo wada xaajoodkii baa yaraaday meelahaynu iska wada fadhiisan jirnay wixii subxaan allah waa mucjiso alla ka timid khatar bay noqotay maxay kula tahay haddii ilaahayga weyne waaxadkee dawadeeda la helo oo insha allah dad khabiirina baan kala hadli doonaa maxaan dhahay cudurka qudhadiisa sida u soconaya laakiin haddiiba la gaadho meel maanta aynu isna dhahnaa maanta waxaad joogtaan waxaad imagine garaysaa maskaxdaada waynaga aad uga hadalna barnaamijkeena think outside the box iyo think for yourself iyo think original waxyaalahan ka hadli jirnay bay ka mid tahay diiran ahaan barnaamijyadeenu ka hadli jirnay kasoo qaad
maanta waxa weeyaan sanadka kowdiisii January 2021 dadku sidee bay kula tahay bay isu bedeleen maxaa isbedelay dadkii laakiin cudur ma jiro cudurkii dhamaa alxamdulillah rabbil aalamiin soo dhaafnay isu nimid is aragnay isbedel caynkee bay kula tahay inuu dhacayo dadka markaynu inagu labadeenu is aragno sidee bay inoo saameynta aynu ka qaadanay cudurka iyo guri jooga iyo baqdinta iyo shakiga iyo iyadoo ilaahay lagu xidhiyo ilaahay la aamino ilaahay la weydiisanayo inuu inaga aafada inaga kor qaado haddana dadkii u malayn maayo inaan ahaanaya Yasmiinta maanta halkaa fadhiday coronavirus ka hor iyo tan maalinta halkaa fadhida kala jaad bay noqonayaan maxay kula tahay baa isbedelaya marka waxyaabo badan baa isbedelaya horta cudurkan ilaahay baa keenay ilaahayna aafadiisa ha ina dhaafiyo asraaqul raxiima mar walba ilaahay waan aaminsanahay waan ducaysanaynaa waan tala saaranaynaa markii aan u imaado Yasmiintii aan shalay isnaqaano barnaamijyada iyo kulamada iyo hawlaha iyo activitieska corona hor ayna dhex mari jireen markii adigu aan hadduu ilaahay ma isku soo keen celiyo brid aan is aragno dee kaliba maskaxdii waxyaabo badan bay soo fakartay guriga soo fadhiday caqabad badan baa soo dhacay oo in soo kala xiray xuduudkii ina kala xiraayay waan ka soo baxnay kale waxay noqon doontaa maskaxdii isla soo hadashay waxyaabo badan ka soo fakartay qurux badan bay noqon doontaa waxaad leedahay barnaamijyadeena kuwii hore waaba kasii ficnaanayaan baad leedahay way kasii ficnaanayaan baan leeyahay walow ay jiraan dadkii aysan isku sii u fakeraynin oo aan cashar ka soo baranayno oo mar kasta dee in aan kala fogaantii iyo waxyaabihii ka hortaga ahaayoo dhan aan cudurradu ku faafi jireen cashar aan kaga soo qaadanay sidii aan uga taxadari lahayn ama aan mar kastaba aan ugu dhaqmi lahayn aan message ka soo qaadanay ama fariin ka soo qaadanay haddana insha Allah waxaan rajeynayaa inaysan wax saameyn oo aysan ku yeelan halkii aan awal u soconay ama sidii aan shaqada u qabsan jirnay ka hor aan iyo kasii badan ba aan usii qabsano aad iyo aad may aniga qodhadeeda waxay ila tahay haddaynu gaadhno waqtiyada dambe hadii ilaahay nafi noo daayo ilaahayna dhaafiyo inuu ilaahay ka baryano innaga iyo ummadda muslimka ummadda Soomaaliyeed kulliba inuu haraar mariyo oo waxaan u malaynayaa isbedel aad iyo aad u saameynaya sidaynu u fikirna ayaa inagu dhici doona waana mid runtii aan u malaynaya aan isleeyahay waxay la imaanaysaa iyadoo inagoo kordhina fikirkeena iyo wanaageena iyo horumarka bulshada aynu already wadno waxa tahay samsamay qolooyinka runtii ugu horreyntii diiran ka soo qayb galay maxaa la dhahaayay barnaamijyada oo dhanna runtii ka qayb galay dhiiran bal wax yar dadka uga sheeg anigu markii wax badan ma sheegine maxaad oran kartaa baa loogu talagalay ama bay saamaysaa ama bay bedeli kartaa inagoo weliba halkaa fadhino oo barnaamijyadii is aragga aynu daynay maxay loogu talagalay bay kula tahay ama ay hore u marin kartaa dhiiran dhiiran waa madal gabdheed oo loogu talagalay gabdhaha welibana gabdhaha oo dhan ma ahane gabdhaha da'da yar oo 18-25 agekooda uu joogo waa madal gabdho badan dhiirigelisay barnaamijyo badan u qabatay bartay foramyo badan soo samaysay iyadoo welibana ka duulayso qaabka ay u fakarayaan oo maskaxdooda halka ay u socdaan halkii ay joogaan halka ay ka yimaadeen halka ay joogaan halka ay u socdaan ayadoo welibana ka duulaysa dhiiran waa madal gabdho badan ay la kulantay gabdho badan talooyin qurux badan iyo consulting badan u samaysay gabdho badan oo welibana aan dadku aad looma taargadgareeyo gabdhahaas dhiiran ay taargadgarayso oo 18-25 ah oo hadda jiilka soo korayo oo waxbarashadii wada ama ku jira ama bulshada lambar fiican ka ah marka dhiiran aad baan u bogaadinayaa adiga ka Yasmiin ahaan oo asaasiyaha dhiiranan ilaahay ha ka abaalmariyo kale waxaa tahay shaqsi miisaan iyo mug weyn leh oo bulshadeeda hawl muhiima u haya gabdho badan u ah role model dhiirigeliso ay ku dayan karaan
ilaahay ka abaalmariyaan ku leeyahay ما شاء الله ما شاء الله أمانة فرح بدني جدا يعني بس لبي حنو برنامجكم أنا وحنا إننا نقول أد بعض مع سنتين مرة سمسم مرين كأد بنكو كرسون هي وحتى ما شاء الله دليل هذا أوقف في فرعونه مرول بهذا ويدا أو أنت ما ركت ما شاء الله قرب كيك تاجن إن سيدا أي شيء سمسم ما شاء الله قبلها أيام بيرجلنا برنامج أسمينا إن لا هذا لا شيء كيسنا وحياة بدنا هذا قرب بدنا نقول بلانجرين إن أيام كورونا فيروس نقصوا كشوفهم ما هالكلام كله ما يسترينا لكن أيامها صوص عدا وحنا يدهور كيننا إن شاء الله dad khabiiriin oo ka hadla cudurkan oo waliba haweena madashan hadda aaladan aanu isticmaalayno waxay noqon doontaa mid aanu ku kulansiino runtii gabdho badan haween badan dumar badan age walba leh oo gabdhaha wacyigelin u sameynaya kana hadlaya waxyaalaha muhiimka ah oo hor yaala bulshada oo dhan iyo haweenka waliba gabdhaha dhalinta yar samsam aadi u mahadsantahay insha Allah ilaa iyo kulankeena dambana kulligin intiina daawanaysa waxaan idin ka baryaynaa ilaahay inuu cudurka ina hareer mariyo insha Allah rabbil alamin inaynu noqono dad isku kalsoon is saacida wax isla qabta xaafadaha waxaan kula talinayaa iyo meel walba ay yihiinba waa la isku dhuxnool yahay dad waxaysta iyo dad aan waxaysan waa la isyahay jiraan baa la yahay dad muslim baa la yahay la is xasuusto waxa la istaro rabadaana way soo socotaa xasuusta dad badan oo gaajaysan baa jira dad badan oo aan haysanin inta adigu aad haysay baa jira marnaba yaan la iloobin in la yahay marka ugu horeysa dad muslina oo ilaahayga weyna waaxidka inta faray mar labaadna inuu nahay dad Soomaaliya sideedaba isu naxariista walaaladiin wax siiya waxaad kari kartaan hadii albaabada leed ku soo garaaca fura jiiraanka xasuusta inta gaajaysan afuriya dadka وبالله التوفيق انت صار idinka tagayna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى يكون كانت mahadsanid samsameyn mahadsan mar labaad iyo mar saddexaad waan ku mahad celinayaa isma dhaafna hay salaam alaykum